لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا inaad qof kala hartaan ama kala tagtaan waa wax fudud balse marnaba ma sahlana inaad qalbigaaga ka jarto quruxdu maaha keliya tan ishu qabato waxaa jira boqolaal dareen oo isha ka qoto dheer xiriir kasta kuma dhisna dareen ee waxaa buuxa kumanaan dana gaara iska leh arsigu waa dhaqanka ugu xun ee niyadaadu ay ku fikirto haddii aad caado ka dhigatana waxaa lumaya jiritaankaaga qof kasta kuma qancayo qiimahaaga adigase u quur dadka qaayahooda tixgeli aragtida qofka kale hana ka tegin taada wax u jeclow si dhammaystiran tani micnaheedu ma ahan inaad waali wax u jeclaato ee waa inaad daacad u tahay dareenkaaga ula dhaqan dadka si dhexe oo aan midkiin dhib u keenaynin ha isku dhiibin naftaada iska badaa naf kale maxaa yeelay isdhuldhigiddu waa qishka uu qofkuugu samayn kara waxa uu doono qaladkaaga dib u sax oo ha sugin in mar walba lagaa waaniyo wixii shalay ha lumin qofna farxaddiisa adiga oo awooda inaad u abuurto marnaba ha sugin inay dadku si saxa ku wada fahmaan ee ku dadaal inaad isfahantaan yeelo dhaqan laguugu jeclaado ama laguugu xiiso haba yaraadee ma rabtaa inaad mar kasta farxad dareento haddaba weligaaga cidna caloosha waxba ha ugu qaban yeelo qorshe iyo go'aan kuu madax bannaan si aad u xaliso dhibkaaga dhagaha ka furayso dhaliilaha aan wax dhisayn aqoontu waa midda wax dhista ee ma ahan midda wax dumisa أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عم البوادي والحواضر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال